maxaan xirfadaha dabiiciga gaarka aan leenahay aga faa'iideysan la'nahay maxay tahay sababta qofka uu dayaco talentiga uu leeyahay uu ka abuuri karo fursado naftiisa uu wax badan ugu qaban karo weligaa ma isweydiisay maxaan ku fiicanahay aan heer caalami ku gaari karaa maxaa hibo gaar ii ah ee aan adduunka wax fiican ugu soo kordhin karaa nafteedana wax ugu qaban karaa mawduuc xasaasi ayaan ka hadlayaa maanta magacayga waa Jaabir Cusmaan JB halkan waa madasha dhalinta Soomaaliyeed ku soo dhawow xikmaso waa huwa la jirkeena kuma qasaari doontid nagu soo bir page-keena follow soo dheh inta aad samayso awaalkaaga waxaan kaaga dhigi doonaa wax cun inaan naga faa'iido mahadsanid waa maxay xirfadu waa sugeynta aqoonta iyo awoodda shay aad awooddo aqoonteedna aad leedahay aadna qaban karto ayaa loo yaqaanaa xirfad haddaba daawadaha sharafta leh ma jiro qof ku dhashay xirfad dadka qaar waxay leeyihiin hibo gaar ah oo u horseeday inay taariikhda baaldahab ka galaan waxaa la isweydiiyaa xirfadaha la yaabka leh oo ay soo bandhigeen dadkaas ma tahay hibo gaar ah ama xirfad la baran karo su'aashu waxay tahay dad badan maxaysan dadaal joogtaha ugu samayn karin xirfadooda dadaal dhab ah in la sameeyo way adag tahay waana arrin kaaga baahan joogteyn oo qofka u horseedi karta inuu ka wahsado dadka inta badan waxay jecel yihiin in si fudud ay wax ku helaan halka qaar kalena ay ka quusteen nolosha daawada aayadan cajiibkaan idin soo wado markii aad fahanto waxa ku cadaan doonto in nolosha lahayn quus in nolosha lahayn wehsi in wax walba la qaban karo qofka bini'aadanka wax walba kaliya ka xig dadaal iyo joogteyn qaala Allahu ta'ala wa fi anfusikum afala tubsiruun wa aayad cajiib ah oo dhiirigelin inta noogu filan miyaanan arkaynin naftiina Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri miyaanan arkaynin naftiina wa aayad cajiib ah runtii u baahan inaan fahno u baahan inaan ka dhigano dhiirigelinta ugu weyn aan haysano daawade wax walba waa baran kartaa xirfad walba dunidana lagu shaqeysto talentiga aad leedahay xooga saar kamira dhali joogteynta ka dhigo caado ku jiidaysa dhanka guusha waadna samayn kartaa haddii aad xirfad leedahay oo gaar ah xirfadaas xooga saar haddii aadan xirfad lahayn waad baran kartaa daawade hard working beats talent shaqada adag waxay garaaci kartaa kartida inaad xirfad degdeg barato xirfad yar iyo xirfad weyn intaba waxaa laga yaabaa inay waqti ka qaadato sanad ama 2 sano balse ugu dambeyn miraha saxda ayaa ka guran doontaa ugu dambeyn nafteeda iyo naftiina waxaan ku bogaadinayaa in xirfadaha gaarka aan leenahay aan xooga saarno xirfado kalena aan barano the more you learn the more you succeed haddii intaana la soo gaartay aad iyo aad u mahadsan tahay muuqaalkiina quruxda badnaa halkaas ayuu ku egyahay intaan muuqaal ceenkan kana kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo